إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ممتاز معراج حسن وقبل هذا الداير أو كعد معانا خرسك قرانك مرة بدنا كسر مغطي ترتمك الدول كواسي أو يكون لستي كلمة وجورية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وممتاز معراج حسن حنكون له مقالة هركيسة وحنا هاي أرضية وحاذ ير إنها لو قفت أير أو قرانك إلالية كنا ديرن إنه كقيب قاتو ترتمى عضك. وحن قالي ترتمو دورت إلى 3 ترتن. الحمد لله 3 ترتن بانكوسو بحي. ممتاز وحي قرانك دميسي سندي لبدي كن إيا لحية تبنكي ولينا وحي ودا أخرسك إيا إلالنت قرانك كريمك. قرانك وحن حفتي لبدي كن إيا لحية تبنكي عدكي وحدي بدأ وصباحي مركي ليقصو عسومي ترتن كميدا ترتنada la qabto alnasiixa media ay qabato tartankaasoo aan ahayn arday 600 alxamdulillah aanan ka mid noqday ardaydii guuleysatay kaalinta koobaadna aan u galay sidoo kale waxaan ka qayb galay tartan ay qabato warbaahinta nolosha islaamka alxamdulillah tartankaana waxaan galay kaalinta labaad sidoo kale waxaan ka qayb galay tartanka MTV oo qabto alxamdulillah isagana heer wanaagsan waan ka gaadhay. الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. hooyadii bay ku dhiirigelisay iyadoo in badan igu soo taabtay haddana doonaysaa inaan heer wanaagsan oo halkan maanta taaganay heer ka wanaagsan aan gaadho dadweynaha laftarkooda way dhiirigeliyeen oo inaan halka ka sii wado sidoo kale waxay ii sheegtay halka ay rajaynayso inay ka gaadho quraanka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka gaadho heer aan insha Allah bidmillaah aan wado duubo 30 jis bidmillaah taala duu ilaahay ila garab galo. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ugu dambeyn Mumtaaz waxay fariin u dirtay dhammaan bulshada ay ku dhex nooshahay iyadoo kula dardaarantay inay quraanka bartaan ilaaliyaan mas'uuliyad weyn ay iska saaraan. waxaan leeyahay quraanka waa in la dhigtaa kaliya dhigashadiisu maaha laakiin macnaha iyo camal falid ayaa intaas oo dhan xitaa si raacsan. waxaan leeyahay biidhnillaahi tacaala quraankiina barta heer wanaagsan ka gaadha macnaha wax walba insha Allah. Habiba Mataan Hori MMTV Hargeysa.